السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي waxaa suubsaneynaa maanta waxaan sameysanaynaa buskud casri ah oo aad u macaan oo buskud saliid ah buskud Soomaali oo buskud saliid ah aan sameysanaynaa aadna u macaan aadna u fudud marka aan isla socono insha Allah channelka subscribe dhaha like dhaha oo ku mahadsantihiin sida aad noo dhiirigeliseen oo like iyo subscribe noogu saarteen insha Allah anagana inaan wax soo gudbiyo la iga taqaanaan halkan waxaan kusoo shubanaynaa 4 xabo oo ukun ah makiinadaas aan ku shiidayaa juuska 4 xabo oo ukun ah iyo hal koob oo sokor ah bakeeri sokor ah iyo waxaan ku darsanayaa bakeeri wax yar dhiban oo saliid ah intaana isku soo shiidaynaa marka haduu alla idmo insha Allah da gacanta ku qastiya hadaa soo shiido adii inaan si fiican la sokorta u qasmato baa la rabaa muhiimada intaas leeyahay markaas si fiican u soo shiidnay sokorta hadii aad markaas aad soo shiidi karin waa inaad sokorta ay budo quuto sokor budo aad haysatid marka hadda baaquligaas aan ku soo gudisanaynaa si fiican oo nagu soo shiidmato ukuntii iyo sokortii iyo saliidii saddexda shay aan meesha ku shubanay marka isla socod wanaagsan hadda waxaan ku darsanaynaa bur marka burkan waxaan ka isticmaalaynaa waxaan ka isticmaalaynaa 2 koob iyo haaf 2 koob iyo haaf 2 galaas iyo haaf aan ka isticmaalaynaa galaaska u horeeyaan ku darsanaynaa hadda marka galaaska u horeeya markaan ku qaso waxaan ku darayaa qaado haafkeed oo qaado wax yar dhiman oo bakin ah bakinka kana aan isticmaalayaa marka kii aad haystaa isticmaali kartaa marka qaadadaas aan isticmaalaa qaado wax yar dhiman waayo bakin ah marka bakinkii iyo faniilaha ku darsanayaa carfiso marka carfiso iyo faniilaan ku darsaday hadda markaas la socod wanaagsan marka si fiican hadda u qasaynaa galaaska u horeeya waaye galaaska labaad waa ka marka hadda kana si fiican ugu hasheena insha Allah waa kana saana u soo hashnay haafka kala kor ugu darno ku qalajinay laakiin hadda waa kana saana noogu soo baxay 2 galaas iyo haaf waa qiyaasta 4 xabo ukun ah koob sokor ah koob wax yar dhiman saliid ah qiyaasta aan isticmaalo intaas waaye hadda waa ka badsan kartaa waana ka yareysan kartaa marka insha Allah aan intaas aan isticmaalay labadan naqshada rabo marka inaan ku kala sameeyo waa la idmo labadan caaga haystaa labadan naqshada rabo inaan ku sameysto insha Allah marka caagada waa inaad bur iska soo mariso hadii kale uu kaaga dhigaa haduu burku bur dhagdhagayahay waa laakiin ana burka ma ba iga dhagdhagayn laakiin waa iska malgay taxadir laan ka waday waana soo goynaa bur yar oo qiyaasta inta soo haya marka qiyaasta inaad soo qiyaasta laga rabaa hadii ka weynaato waa jaree waa isla ekeysiine gacantaada le adina ku qiyaasta la rabaa labada suulna aad saarta ama halka suul asaas dhag geesaha uga siiso oo ku dhajiso si calaamada ay uga muuqato hadii aad saartid le calaamad ma muuqanayso marka saasna uga soo fujinay oo kasaas uga soo dhacaya markaas quruxdaas uu ku soo baxay marka kan kala hadda naqshada kala hadana ku sameysanaynaa naqshadan saanay noogu soo baxday naqshada kala aan ku sameysanaynaa hadana marka maanta dhan waxa dhan idin wada tusi karo labadan naqshad leh had mar idin kala tusaya insha Allah saasa ku soo dhameynaya haduu alla idmo
waa wax yar oo iska fudud oo casriye ah. Marka casri u cun ama marti u cun, adi marti hadday kugu imaanayso oo aad u suubsanaysid waa okay. Haddaa adi naftaada u samaysanaysid xataa waa okay. Laakiin waa wax yar oo iska fudud oo simple ah. Waqti badanna kaa qaadanaynin. Marka naqshada kaatana saasi ku soo baxday. Saasaa ku soo dhammaynaynaa marka labada naqshadba. qaabkaasna waa u gedi kartaa haddii aad rabtid bahasha oo yarta oo gadaal ka soo riixaysa caagada yarta ah. Intaa bixisa gadaalna waa u soo gelin kartaa, gadaalna waa u isticmaali kartaa. Meesha weyn oo horeyna waa u isticmaali kartaa sidii aad rabtid markaas aad jeceshaa. Marka waa kaas saasuu noogu soo baxay quruxdaas. Marka labada saxan uu noo noqday, haddana waa duwanaynaa insha Allah. Saliidda dab soo saarnay. Saliidda ma la rabo inay karkarto. Hadday karkarto guduhu ceyriinka noqonaya. Marka saliid dabka waa u gaabinee qandac yariisa ka dhigay. Saliidda iyadoo yar qandac yar leh ha ku ridee. Dhinaca calaamada oo fiyooraha inaa hoos marisa waaye. Dhinaca kaleetana aad kor soo marisid. Saas inuu kuugu soo kara waaye. qaybteena koobaad hadda ku ridanaynaa isla socod wanaagsan. Marka saliidda hadday soo qaqandacaysaa si fiican u soo karkaraysaa, laakiin dabku ka gaaban yahay. Xoog uma soo karkarayso. Si fiican uu kuugu karayaa gudaha ceyriinka ma noqonayo, qaleel uu noqonayaa asaga dhan. Waayo wax biyo iyo waxba laguma qasin, caano laguma qasin. Marka waa ukuntaas leh asagan si fiican u soo karaya, qaleelna u noqonaya. Saana u gidisanayna marka inuu dabka kaaga boobo lama rabo. Haddii dabka dheerayso dabka ka booba, laakiin haddii uu dabka ku gaaban yahay wax yar wuxuu ku noqonayaa si yar oo fiican kuugu karo. Saa camal kuugu soo baxaya goldigaas. Quruxdaas uu kuugu soo baxaya. Marka saxankeena saaranayna qaybta aan horeyso aan la bixeena. Qaybta labaad aan ku ridanaynaa haddana. Waa kana qaybteena labaad waa ku soo ridanay. Ayadana sida hadda camal ay u soo karinayna waa sugeena. Dabku gaaban yahay. Xoog uma soo karkarayso. Waa kaas sidaas quruxda badan goldiga ayadana ku soo baxda qaybteena labaad. Lagama sheekeyn karo. Caraf iyo macaan isku darsaday. Macaan zaidna ma aha. Caraftiisa iyo macaankiisa kaal iskaarg walaa waa kaas noogu soo baxay. Intaas noo soo noqday.
marka bas quruxdaas uu kusoo baxay maasha Allah. Hadda kadib saas u sameyso haddii marti ku soo socoto haddii aad u baahatid inta saas ugu soo tuuro insha Allah. Channelkana subscribe saara waa ku mahadsantihiin sida isa subscribe gareyseen mahadsanidini.